baabuurka ugu dheer adduunka ayaa ugu dambeyntii lagu soo bandhigay madxafka Desert oo ku yaala gobolka Florida ee koonfurta bari ee Mareykanka. dhab ahaantii waxay u dhigantaa 12 baabuur oo Smart 42 ah oo hal saf la geliyay. hay'adda Amerikana wali waxay ku sii hanweyn tahay inay ka sii dheeraan doonto cabirkaas. baabuurkii adduunka ugu dheeraa ee dib loo soo cusboonaysiiyey ayaa jebiyey rikoodhka Guinness World Record markii si rasmi ah loo cabiray 1 Maarso 2022 kaasoo gaaray dherer dhan 100 feet u dhiganta 30.5 mitir oo ay sameysay shirkadda gabaarida J of Berg. culayskiisa ayaa lagu qiyaasay 9,000 kilogram oo lagu giraangiriyey 26 taayir. gaadhigu waxa uu leeyahay barkad dabaasha oo heer caalami ah, goob lagu ciyaaro kubadaha golfiga iyo meel ay ku degaan oo ay ka duulaan diyaaradaha khumaatiga u kaca. dhexdiisa waxaa lagu nashqadeeyay fadhiyo casaan ah si ay u soo jiitaan dalxiisayaasha. gaadhigu waxa uu qaadi karaa ilaa 5,000 oo radal, waxa uuna ku cabir yahay nibiriga buluuga ah. si kastaba ha ahaatee waxa uu galay buugga dhacdooyinka dunida.